runtii komishinkan wadatashiga qaran bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa qaab socodkiisu nidaamka loogu talagalay loo qorsheeyey laga heshiiyey ayuu ku socday run ahaantii wadahadalku ma ahayn mid ku dhisan cadaadis ama fargelin gudaha iyo mid dibadeedba waa wadatashi dadku isagoo siman hadday tahay deegaanada iyo qowmiyadaha hadday tahay shakhsiyaad ahaan dadku isagoo xor ah aragtidiisa cabiri kara wada hadli kara ayuu wada xaajoonayay runtii nidaamkan komishinku uu maanta sameeyey wuxuu tusaale u yahay geeska afrika dalka etoobiyana wuxuu u noqon doonaa taariikh dahaba oo la xusi doono sannad walba wakhtigay etoobiya caqabadihii jiray ka gudubtay una gudubtay etoobiya oo nabada etoobiya oo barwaaqa etoobiya oo isbaansan isjecel waxaad og tahay etoobiya inay 83 qowmiyadood ay deggan tahay qowmiyadahaasi waa kala diimo waa kala luuqado waa kala dhaqan waa kala midab haddana waa dal abad taariikhda etoobiya dawladnimadeedu ay jirtay aan weli burburin oo dhisan isagoo intaasoo qowmiyadood deggan haddadan komishinka wadatashiga qaran caalamka marka laga qabto dalalku markay burburaan oo kala guur dhaco yaa wadatashiga qaran la qabtaa laakiin waxaad og tahay dalkeenna etoobiya dawlad adag baa ka dhisan xisbi adag baa ka dhisan haddana waxyaabihii dawladii iskala dambeeyey raadadkii ay reebeen wixii wanaagsanaana waa la qadanaya wixii xumaayee soo dhacay si uu dadku iska bogsiiyo loogana gudbo etoobiya siman muwaadiniin siman qowmiyado siman oo mid walba midka kale ixtiraamaya dalkanna aan kala lahayn in maxaan ku dhahdaayay maanta loo gudbo arrin mucjizo ah weeye waxaad og tahay 35 saneen soo dhaafnay dalkan inuu 4 qowmiyadood mulkiile ka yihiin ama taladiisa ay go'aaminayeen qowmiyadaha kale ee tusaalaan deegaanka Soomaalidu waa qowmiyadda ugu dhulka ballaaran shacab ahaanna qowmiyadda saddexaad weeye haddana qowmiyadaha loo talinayay go'aanada la soo siinayay ka mid yihiin in halgan isdaba jooga oo la soo galay kadib heerka la soo gaadho oo maanta Etoobiya iyadoo siman qowmiyad yar iyo tu weyn ay wada tashato arrimaheeda mustaqbalkana hagaajisato caqabadihii jirayna iska bogsiiso loogana gudbo arrin mucjizo ah weeye waa arrin taariikhi ah ilmaha aan dhalay ilmahay dhali doonaan baa ku aayi doona xusi doona afrikana waxay u noqon doontaa tusaale wanaagsan